ninkan naagta saaxiibtiis ahayd wuxuu ku balamiyay oo ku dhahay si aan u dilno naagtayda hantideeda iyo waxay haysatana anaga aan ugu raaxaysano anaga aan noqono dadkii u hartay waxaad sameynaysaa caawa 8 markay tahay waxaad ii furaysaa daaqada guriga laga soo galo guriga daaqadiisaas guriga daaqadooda daaqad ka mid ah si inta meeshaas uga soo galo aan iyadana ugu dilo markaas kadib anna aan u noqdo qofkii ku maqnaa safarka adina aan ku noqotay saaxiibtii cabsineed ee guriga iska joogtay oo waxba aanan kala ogeyn khiyaanadii ayada ahayd ninkaas ay say kusoo noqotay aakhirkiina wuxuu ka dhaxlay inuu asaga uu galo nolol aan ka soo noqosho lahayn ama cinqaab aan neeba soo noqosho lahayn taasna waxay cadeynaysaa inaa qof god khiyaanaha qodin haddaad qodinna ha dheereen ku dhici doontida ma ogid wax walba sameynaysid waxaa fiican be careful inaa u samaysid sababtoo in hadhow kugu soo noqoto ayaa laga yaabaa videogan dhamaystiro insha allah haddaad ka heshid بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا سلامي دمان ولا الله كحر الجنة كيغا ملك استعدونك اكو جوجتين وحني رجينيا غير عافمات فرحات باش يبرواقي إنها كنا ولاتين إن شاء الله انت حنوصن إلهي عافمات الصية انت عافمات خطان إلهي وسوسيا لي لما انت سوري دوادا سيدا قرحانا إلى جوجتين وإن كلامها بعلنا هدان نوع صبتها سوري دواو سبسكرايب نوري حدي أهر نوري جوجتنا لايك تهانا بقيلين إن شاء الله يعني waxaan rajeynayaa in intaasna aad ii soo bindoontid haduu ilaahay yiraahdo maanta waxaan ii wadaa qisadan waxay ka dhacday East Africa wadan kamid ah wadamada la isku dhaho East Africa qof walba uu yaqaana wadan kamid ah wadamadaas ee qisadan ka dhacday waxa isla noolaan jiray oo isqabay oo jacayl isku guursaday nin iyo naagtiisa inta badan waa la ogyahay guurka wuxuu ka bilowdaa waa jacayl mid waa hesasiya mid waa dan isku guursaday laakiin midkan wuxuu ahaa mid ku bilowday jacayl ninkan inaagtan waxay isqabeen muddo oo 8 sano ah waxayna isku dhaleen laba wiil oo midna 6 jir yahay midna uu 4 jir yahay labadooda wiil siday u korsanayeen oo u haysteen gabadhan waxay ka dhalatay markeeda horeba cid oo qani ah oo hanti haysato aabaheed wuxuu isdhalay asayda iyo hal gabar oo kaleeto hantida intooda badanna wuxuu ku siiyay oo ku saxiixay labadiisa gabdhood guriga ay degan yihiin markaas ay ku wada nool yihiin ayadii ninkeedan waxa iska leh aabaheed oo ku saxiixay gabadhiisa oo u siiyay markii la guursaday hadiyad ahaan sida badan inta badan in wadamada oo dadka Afrikaanta ama gaalada dhaqan waxay leeyihiin ka duwan dhaqanada kaleeto oo ah in gabadha markii la guursado loo geeyo hadiyad ama la siiyo hadiyad qaali ah ninkan gabadhiisa wuxuu u siiyay gurigiisa weynaa hadiyad gurigaas ayada ay ku noolaayeen ayadana waxay ahayd qof shaqaysato oo waxba aan ka maqneen oo aan ka qasneen hantida aabaheed uu siiyay inta ay kaga soo aadan waxay doonto ka taqriibasho ninkeedana u baarisan wax walba u baahdana siiso ayadana wax leeleexsho aan ka galinin laakiin asaga wuxuu ku noqday muddo kadib ninkii wuxuu bartay gabar kaleeto wuxuu damcay inuu ku qiyaamo naagtiisa gabadhan kaleeto uu qiyaamay oo asaga hantida gabadhan uu la wareego si uu midaan kaleeto uu ugu soo wareego khiyaanadii ayada ahayd khiyaanada sideeda waa iska wax iska gaaban qofku ilaahay la jiray sooma bini aadanka inta badan ku xisaabtamaan wixii sameynaysa kadib ficilka imaan doono muxuu noqonayaa ninkan wuxuu sameeyay gabadhi oo saaxiibta asaga saaxiibka ka dhigtay ay wuxuu damcay inuu ku soo dabo naagtiisa naagtiisa wuxuu ugu qasbay gabadhi kale wuxuu ku qasbay oo ka qalaqaaliyay oo ka dhaadhiciyay inay naagtiisa la noqoto saaxiib dhow si ay sirta wax walba waxa la wixii heeso hadhoweyto ee u noqdaan dad aan waxba ka qarsooneen wax walban uu u helo gabadhi ayada ahayd waxay sameysay sida ayada ahayd naagtii waxay ka dhigatay saaxiib mar walba asaga wuxuu iska dhigi jiray naagtan inuu necib yahay wuxuu leeyahay markuu guriga imaado kale ayadoo la sheekaysanaysa ama la joogto oo imaado wuxuu dhahayaa naag maxay maanta ku arkaysaa gabadhan dantaada waa seegtay qoftaana ku haysa ayadana mar walba saacad wuxuu leeyahay hoos intuu kala soo hadlo wuxuu leeyahay cagta u saar ha ka degin oo imo ha ka dhamaanin qof kalsooni buuxdo si ay ku siiso oo hadhow even hadday wax dhacaan waxa uu asaga markaas u dabacsan yahay oo ah dil inaan la noqonin naagti aan looga shakinin labadooda min oo loo dhaho midaan waa saaxiibtiisa kana waa ninkeedii bas waxa dhacday muddo kadib
gabadhii ayada ahayd waxay samaysay inti kalsooni qof bini aadana lagu kalsoonaado waxay ku kalsoonaatay gabadhii ay saaxiibada ahaayeen ninkeedana ay saaxiibka ahaayeen oo ayada la rabay in lagu soo dabo ninka sida uu ahaa oo naagta uu ugu dulwaday naagta kaleeto ayadoona gabadhaan aan ka feejignaanin ayuu habeenada kamida wuxuu qorsheeyeen asay naagta kaleeto inay dilaan gabadhaan si ay u noqoto caawa habeenkii ugu dambeysay oo labadoodana ay u xiroobaan hantideedana ay u qaadato oo hantideedana uu qaato wuxuu sameeyay inuu maalinkii dambe casuumay labadoodii iyo labadii ilmo ay dhaleen ayuu wuxuu dhahay waxaan isugu kaana keentaan caawa waxaan tegaynaa beer hebel oo ah beerta dalxiiska waxaan tegaynaa maqaayad hebel oo baar hebel oo ah baarka ugu quruxda badan magaalada caawa wax walbeeto dhan anagaa qabo meel walbana ay soo marsiina ay soo cashasiinaya nakeen gabadha marka allow sahal baa waxa may oga sidii bay ku raacday asna wuxuu rabaa inuu kalsoonida ugu dambeysay oo ugu sii dambeysay oo weligeed dambe ayna ka shakinin inuu ku abuuro sidii may sameeyeen meeshii way wada tageen ayagii ilmahoodii wixii inay soo samaysteen markay dalxiiska iyo cashada ay ka imaadeen kadib oo ay gurigooda kusoo laabteen ninka wuxuu degay qorshe ah inaan asaga laga shakinin si uu gabadhan waqtiga dilkeeda uu usoo dadajiyo gabadhi xaaskiisiyeed wuxuu ka dhaadhiciyey inuu aadayo safar uu ku maqnaanayo 3 habeen safarkaas uu aadir kale u rabo gobol kaleeto inuu u aado safar degdeg ah soo gal ku dhahay saaxiibay oo u socda gobolkaas kaleeto oo rabo inay barnaamij ka soo xalisto 3 habeen kadib ayaan imaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaad samaysaa ina adiga la sii joogtid xaaskayga la sii xaaskayga wuxuu ku yiri waxa ku sii wehelinayso weheshata gabadhan saaxiibta ah ha kula sii joogto guriga ha kugula noolaato intay habeenkii awalba kaligeeda meel degneed ee meel ka aadileed labadiina sii weheshada maadaama aniga aan ka maqanahay gurigan kaliga cidada ah joogin gabadha miskiinta waxay u maleysaa warkiisa sax bay u maleysaa mana oga labadan qof inay ay qiyaamayaan oo ay khiyaanada isla ogyihiin rabaan inay saas ku gaadaan waxay sameysay inuu barnaamijka asaga hay dhahday ay ninkan wuxuu aaday meeshii u socday markuu baxay mana u bixinay magaalada kama bixinay laakiin wuxuu rabay qorsho loo dhaw hadhow markii la dilaayay magaalada uu ka maqnaa gabadhii labadii gabdhood ayagoo isla joogaan oo sidooda iskala nool habeenkii koowaad uu maqnaa habeenkii labaad ayuu wuxuu soo qoray text message uu soo qoray ilaahay qadarkiisa wuxuu u soo dhacay naagtiisa wuxuuna u diray naagta kaleeto message waxa ugu qorneed caawa markay tahay saacada intaas 8 habeenimo ama 2 habeenimo waxaan u soo dhici rabaa guriga daaqad heblaaye iga sii fur waxaan rabaa inaan qolkeeda jiifka inta ugu galo aan ku marjiyo halkaas subaxdii la arko ayadoo meed ah sidaas darteed anigana waa ka baxaa guriga adina qolkaaga iska hurudaa wax qof wax uga ma tihid waxaana sameynaysaa waxay isticmaashaa gabadhaas daraagiska ama qamri ma laha balwada kala duwan waxaa isticmaashaa kaniini daraagis si loo dhaho qoftaani way cabsaneed oo iska hurday waxa may kala ogeen guriga markii waxaan ay ka dhacayeen anigana waaba ka maqnaa bas message-ka asaga ahayd lilaahi laqdaa meel muuda galaan la dhahay wuxuu usoo dhacay naagtiisii asagana wuxuu u dirsanayay naagta kaleeto kaaga darantana qofka haddii mar faraha laga luminayo wax kaleeto muusan sii ogaanin mana una sii fiirin telefoonkiisii mana uu sii xaqiijin qoftiisa usoo diray message-ka inay qoftaan tahay iyo inuu qofti kala tahay wuu orday jawaaban kaa sugaan uu usoo raaciyay wuu orday telefoonkiisu iska dhaafsaday ayadii go-aanay gaartay ilaa message-ka ayadu usoo dhacay wax walbana way ku dhamaaday way ogaatay waxay samaysay qolkeedii jiifka waxay ku xirtay camero gabadhanna kaniini hurdo ay waxay ugu dartay cabitaanka markay imaadeen qaybta fadhiga si loo sheekaysanay waqtiga la kala seexan rabay caano waxay ugu dartay kaniini waxay ugu dartay caano ay dhahday hooy cab caanaha nacabina isaga baashaalayna dhalada ku fiirsanayna gabadhi markay suuxday oo hurdada suux ma ahay ay ku hurdootay kaniiniga uu qaaday way qaaday waxay geysay qolkeeda jiifka waxay siixisay sariirteeda jiifka waxay kala samaysay telefoonkeedina waxay ka dirtay message ah wax walba waa diyaariyay waqtigana waxaa ka dhiman 1 saac wayna ka tagtay telefoonkeedina waxay saartay miiska korkiisa ninkii daaqadii ay u sheegtay wixii farsamadii iyo actionka uu soo siiyo dhan way u samaysay ayada kasii wada furtay wixii oo dhan abo hello soo ordayay waqtiga markii la gaaray wuxuu imaaday xaafadii wuxuu soo galay daaqadii gurigeedii jiifka حتى حاجة مكسيكا لفيرن وحاكش إنها ليرك أو كان هردة وحو مع صريرة الجيف كأهات وحو قبت فيلوين كت الوحي اللي قرنطة أم تليفونات وحو كمرجي قبلي إلا أن نفتك بحضة
markii nafta inay ka baxdo ogaado uu xaqiiqsaday asoon wajigeeda fiirinin buu wuxuu ka baxay daaqadii uuna iska tagay ayadana hal faraq kama dhaqaajin mana aynu u nuuxsan mana aynu fiirin xataa meesha wax ka dhacay saacad kadib waqtiga dilka waxay wacday booliska markay wacday ay imaadeen gurigeedii waxay baaritaan ay sameeyeen gurigii waa la iskugu imaaday wixii oo dhan meel kasta la fiiriyay waa laga tagay gabadhan wixii dilay ninkii maalin kadib uu guriga kusoo laabtay 3 maalin markay u dhamaatay tuhuna imaaday waa la isqabsaday gabadha dilkii baaritaan la sameeyay ninkii markuu guriga imaaday waxa ku bariyay waa iyo lama filaan waxayna ku noqotay wax la yaabay inuu ninkii oyna noqonin qofka uu dilay qoftiisii horta telefoon uu soo wacay wax walba uu sameeyay telefoonka gabadha wax ka jawaabay malahan wuxuu sameeyay safarkiisa inuu soo gaabiyay ayuu wuxuu imaaday guriga ayadoo waliba hal maalin u dhiman tahay guriga markuu imaaday wuxuu ogaaday inuu dhibka dhacay iyo dilka dhacay ee ahayd wuxuu u dilay naagta kale aysan ahayn naagtiisii uu nooshahay bas wuxuu sameeyay marka wuxuu damcay inuu iska dhigo qof aan waxba ogeyn aan waxba ka warqabin ilaa mar rabo inuu dambi kale kusoo baxay maadaama qofku dilka u rabay aysan dilin soo ma gabadhaana waxay qabatay markuu aragtay inuu guriga imaaday oo isu soo xaadiriyay waxay farta ka saartay caddeyntii dhan booliska iyo text message iyo wixii uu soo diray oo dhan iyo wixii isdhaafsadeen telefoonkeedii uu ugu soo diray message wixii dhan waxay u siisay caddeynayaan booliska ninkaas sidii wuxuu ku noqday ninkii rabay inuu asaga wax shirqoolo oo asaga naftiisa is shirqoolay sababtoo ah wuxuu rahaa aadishid gabadhan muna u lahayn aadishid xaaskaaga aadishid ma ahayn gabadha kale aadishid ma lahayn hantidan uu inuu qaato hantina ma qaadanin wuxuu noqday gacan ku dhiigle xukuman oo ku xukuman diintooda marka meeshaas waxay kaaga cadeynaysaa in hadda qiyaamo waxa dhahay Soomaali wuxuu ku maada god qiyaamaha qodina daa qodid ha dheereen ku dhici doontida ma ogid ma waxa dhacdo marka marar badan inuu qofka loo saadida damacsantaa qofka inaa wax u samaysid oo qiyaamada ama laqdabaysid in marka dambe adiga kula gadoonto heer aad gaarsid in adiga naftirkaaga ay kugu soo noqoto bayaanada iyo balaayada amaleegaysid waxaan looga cimri qaadan karaa qisadan inaad adiga naftirkaaga aad sameeynin qiyaano heer intaas gaarso xadka ka baxsan oo damac hanti adduunyo oo adiga lahayn oo ku nooshood ku raaxaysanayso wax ka maqan aysan jirin inaa u qiyaantid xaaskaaga ama ninkaaga si intuu damac kaaga kala adrajino adigoo kula nool oo kula raaxaysto oo kula nashaado ilmahaaga kula haystid baa heli kartaa inaad dil iyo waxa loo joogin aad gashido wax kale iimaankan waa shay cajiib inta badan dadka wadamadaas ku nool waa dad oo damaca dhaqaalahooda iyo iimaankooda iska yahay wax daciif ah islaamnimadan waa muhiim ilaahay islaamnimada lagu dilo qof islaam inta badan waxa umaleynaa damaca noocaas ku fikir laakiin dadku waxa isku fikir hanti iyo waxa loo joogin waa dadka wadamadaas kale jiray iyo dadka aanan diintooda aysan fadhid ahayn aad iyo aad idin salaama asxaabtayda qaaliga hadaa sheekada ka heshay fadlan like-ta check igu sii wixii fikirkaaga aan waa ila wadaagi kartaa inta videoga xiga aan ku kulmi doono ama qisadan xigto waxaan igaga tagayaa salaam calaykum